wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hoyga uu dalka Imaaraadka ka degan yahay ku booqday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xubno qoyskiisa ah. kulankan ayaa la sheegay in lagu gorfeeyay mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland, xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta, iyo sidoo kale maalgelinta shirkadda horumarinta dekedaha adduunka ee DP World. wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Baashi Cawil Cumar ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulanka dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliland iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. kulanka maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku soo booqday aqalku ka degan yahay magaalada Dubai. madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo marwadiisa waxa uu daarnaa in madaxweynuhu uga warramo madaxweynihii hore safarkan uu ku joogo dalka Imaaraadka ee uu ku soo martiqaatay dawladda Imaaraadku, waxyaabihii uga qabsoomay guulihii ay ka soo gaadhay Jamhuuriyadda Soomaaliland, cilaaqaadka dalka Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda iyo dalkan Imaaraadka ka dhaxeeyo oo ah cilaaqaad soo jireen ah oo uu qayb weyn ka ahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. waxaynu rajaynaynaa in maalmaha soo socda madaxweynuhu uu uga warramay madaxweynihii hore in barnaamijka si uu hirgalo oo insha Allah technical committee labada dhinac ee hawsha sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabaan, kaas oo horumarka dalka wax weyn ka tari doona haday noqoto xagga samafalka, haday noqoto xagga dhaqaalaha iyo haday noqoto xagga amniga iska kaashanaya labada dal.